السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalay waa idin salaamay isku soo noqod waa wanaagsan waa walaashiin uma Israel video cusub maanta insha Allah saa u jeedinba maalmahan videoyada waa videoyaasha hooyanka uga faa'iideynayay iyo xanaanada dharka siday u kala saaran karaan insha Allah waxaan idin la soo wadaagay magacyada sida ugu soo sameeyay waxaan kaloo idin kala soo wadaagay waxyaabaha muhiimka u ahaa haddana waxaan idin la soo wadaagayaa sida dharka xanaanada ani aan u kala saaro mataqaana aan usii kala habeeyo oo si mataqaana macallimiinta ugu fududaato ana igu fududahay extra dhar ayaa ilmaha loo dhigaa daagiska ama daycare-ka waxaa u dhigaysaa saddex joog ayaa u dhigay saddex fanaanad saddex surwaal saddex sigisaan saddex kastuumo ayaa u dhigaa mar walbo iyo gacmo gashigii waxyaabahaas oo xilliga winterka markii la gaaray soo marka hadda markii oo daycare-ka la furaayo from the beginning magacyadii waa idin soo sheegay sida u dalbaday iyo sida u habaysanaysiin meelaha ka heli kartiin kul waa idin soo sheegay maxaa kale oo idin soo sheegay sida mataqaana waxyaabihii aan soo gadgaday oo ugu muhiimsanaa iyo waxyaabaha ilmaha u fiican haddana waa kana waxa isticmaalayaa bacda IKEA oo freeska faranjeerka barafka cuntada lala gashto ama faranjeerka kala caadiga sida qudaarta oo kale yaanyada waxyaabahaas oo kale aad ku gashan kartid marka waxaan ku qoranayaa qalin waxa ku qoranayaa hadda mataqaana kastuumooyin iyo surwaal soo bacdaas waxa ku ridayaa kastuumooyin iyo surwaal kaliya troya iyo surwaal waaye waxaa fanaanad iyo surwaal troya oo waxa ku qoran bigsa marka macallimiintan way u fududahay oo markii anigu soo qooyo maxay imaanayaan armaajadiisa ama meesha dharka loo geliyo wuxuu fiirinaa marka meesha wax u yaal intuu dharka dhan macallinka qoqofi lahaay ama mataqaana wixii oo dhamaaday la arki lahaa waxyaabahaas dhan waxay ka caawinayaan bacdan waxaa ku jira surwaal iyo fanaanad bacdan waxaa ku jira kastuumo iyo sigisaan sidaas ay u kala caawinayso anigana hadhowtu way ii fududahay marka ilmihii soo wadanayo kaleeto just waxaa fiirinaya armaajadooda waxa ku jiro meesha armaajadooda istaaga bacda le kor u soo qaada bacdi wixii ka dhamaada markii aan arko bacdeedii la soo qaadana waa soo buuxinaa maalinta ku xigto waa keenooyaa ma fahanteen meeshii oo dharkii dhan hal bac haddii uu ku jiro hadda iyo kow wax dhan intaa ku qufo hal u fiiriyo tiriyo wixii ka dhima soo qaadi lahay inta waxay iga caawinay already wixii dhibnina intaa hore ka arko guriga usoo qaata bacdeeda maalinkaas isla markii guriga imaado aan hore kasoo buuxsado anigoo mataqaana waxyaaba fiiris badan iyo wax tiris badan waxyaabahaas aan gelin even haddaa meel u degdeg bacda le hor usoo qaadanay guriga keenso habeenkii buuxso subaxdan ilmaha markaa geynaysid la gey waaye soo marka ani si fiican ay caawisay ra'yigan adikana waxaan jeclaystay in idin la soo wadaago because wax shaqo ka yareynayo waaye macallimiinta iskuulkan ay aad kugu jeclaanayaan ay mataqaana ku arkayaan family ama qof hooyo organized oo wixeedii si fudud usoo kala saartay mar walba organized adiga u muuqatid waa sidii niyadaada ay organized u tahay ma fahanteen soo marka wax isku dhexyaacsan marka aragtid qofka badan ani sida uu fakaro qalbadiisa isku dhexyaacsan marka si mataqaana maskaxda kugu deganaato wax isku dhacay badan maskaxda kaaga gelin waxyaabahaas dharka ilmaha horta waxyaabo ugu badan waaye oo rafaad ka socda yacni waqtiga ugu badan qaato inaad raadisid inaad diyaariso waxaas dhan marka hadda bacdan oo kale waa kana waxa usoo geliyay saddex surwaal iyo saddexdiisa fanaanada ugu soo xareystay yaristeeda surwaal kale bac kale waxa ugu ridi doonaa fanaanada yar oo iska extra maadaama yarista aad u yarta cunto cunidan hadda ay baranayso iyo fanaanada saddex xabo uga badiyaa waayo cuntada isku daadaadinee marka bac kalena waxa ugu soo ridi doonaa sigisaamo iyo fanaanada kale oo extra so I hope inaa fahmaysiin sida ka wado bacda u jeedin troyer oo waxa ku qoran bixar marka troyer iyo bixurka waxa ugu qoray macallimiintii way arkayaan saani meesha u istaagan way fiirnaan maxay soo baxsanahay troyer iyo bixar labadaas u baahan yihiin ama mataqaana strombor iyo troyer kay ka baxsanayaan sigisaamaha iyo fanaanadaha kaleeto marka I hope in adikan saas wax iskaga fududeysiin bacda firiiska mid 2 litir ama 3 litir qaadayso waa midaasna mid ka sii jaro may walaa waxa 4 iyo bar litir mid qaadayso 4 iyo bar litir meesha ay ku qoran tahay sa arkaysiin IKEA ka soo gaday qalin caadi leen ku soo qortay waxa jirta xanshiiris oo magac lagu qori karo oo lagu dul dhijin karo ama magacyadii aan soo gatay ayaa ku dul dhigsan kartaa magacyaasha aan dalbaday naam la barka laakiin ani ma ku dhijinin because magacyadeeda waxa uu rabaa dharka inuu igu dhaganaado soo bacda waxa isleeyahay waxa kugu filan qalinkan hadii ay ku qortid madam bacda dhan qof intuu baxsad uu ka qaadaneen oo dharka markii bacda laga soo bixiyay isku dadarsoomaayan intan waxa ku rid doona strombor oo pixur waxa ugu ridaaya gabadheeda kaleeto marka sidaas oo kaleeto ani aan iskaga soo habeeyaa si fiican wallahi igu shaqeysa oo maasha Allah kaal iska arag I hope adikan inay idin shaqeyso baayooyinka hadda ilmaha daycare ku bilaabayaan ama kuwa u bilaabeen oo hore mataqaana saan oo kale u sameyn jirin hadda kasoo faa'iideysta in dheelaha qalinka meeshaas waxa ugu soo qorayaa meel fiican loo arkaayo waayo oo mataqaana oo baad hore ka arkaysid
markii aa furtid marka waa ani mar walba waxaan jeclaa wixii aan ii shaqeeyo oo shaqo iga yareeyo ama wax ii fududeeyo inaan idinla soo wadaago sida macnii idinkana ay shaqada idinkaga yaraato because hooyo mar walba shaqadeeda way iska badan tahay oo ma yaro marka anigana maadaama aan ahay hooyo banaanka kasoo shaqeyso oo gurigiina shaqo badan u taalo oo ilmihii iyo wixii dhan iskugu karhayso soo marka sidaanan iskaga sii yareeyaa waxyaabihii markaan shaqada ka imaada anigoo iska daalan oo iska waxaysan waa fahmaysin bac intaa ku qufi lahay meeshaana fiirina bacdan maxaa ka yaraaday waa soo qaadanaa bacdeeda marka arkina dhexdhex soo marayso gurigaan keena waa buuxinaa next day waa u celinoyaa marka anigana waqti badan ii dhaqaaloobayo macalimiintina wax badan aa u fududaanayo intay ii soo dhihi lahayn dharkii wuu ka dhamaaday Isra ama Intisaar dhar kaleeto u keen anigoo arkin ama ayagii markay dharka soo bixinayaan bacada inay qufaan ama dharka dhan ay qufaan ay ku noqon lahayd already way arkayaan meesha ka baxsanayaan wuxuu kaleetan way u xiraayaan soo macalimiintana shaqaa ka yareysay oo ayagana way ku farxayaan markaas shaqada uga yareysay adigana shaqaa iska yareysay soo marka adinkana insha Allah inaan sidaas oo kaleeto aad samaysatiin ayaan idin la jeclahay hadii idin suurtagelayso walaalaha qaali ah insha Allah walaashii qaali hadaba intaan soo gaartay videoga walaalkii qofkii daawanayo no maara hooyooyin bismi daawadaan aabayaal xataa way daawadaan waan mahadsantihiin sida ii daawatay walaalaha qaali like noo saara share noo dhaha videoga wixii ra'yigiina comment ugu soo qora iyo waxyaa ka faa'iideen maxaa kaloo la dhihi jiray walaalihiina la wadaaga subscribe hanaga iloobina subscribe meel fiican inoo mareysa ilaa khayr hayna siiyo like iyo mataqaana share iyo waxaasna iyagana insha Allah si fiican noogu sii habeeya soo marka meesha aad arkaysiin gabadheeda kale taweyna u diyaariyay soo dharkiina wax yariis ku noqonay meesha baac weyn oo dhar qaadaysid canugan inta soo gali kan inta soo gali waxa kaaga fudud sidaan yar adigoo mataqaana wixii u soo kala toosisatay oo dharkoodii bacaha ugu soo riday oo macalimiintan u fududaha adina ku fududaha waqti badan labadiin idinkaga dhaqaaloobayo ayaan badan ani u sameystaa boorsadan wax walba gabadheeda ay qaadato waaye magaceeda ugu dhajiyay ayadana xabad magaca u soo fujinaa oo ugu dhajinaya saarkiisiin waayo ilmo badan waxaa jira boorsadan oo kale u wataan ayaa la dhigtaan fasalka ama meesheeda soo Isra oo Intisaar wixii ku qoran tahay dhan gabdhiga iska leh meelaha iigu xareeyay waa fahanteen marka adinkana insha Allah inaad soo faa'iideysteen aan rajeynaayo walaalahay waa kuwaana sidaan u soo diyaarsaday dharkii oo daycare-ka caruurta Isra ayaa ku qoran waxa ugu qoran surwaal iyo kastuumo ayaa ugu qoran midaas mid kaleetan waan u soo diyaariyay oo ayadana fanaanadaha iyo aan ugu soo riday waxyaabaha kaleeto yariiseeda sidoo kale ayadana u soo diyaariyay marka shaqadan way ka yaraanay macalimiintan way ka yaraanay inta waxa ku jiraan Isra ayaa ku qoran saarkaysi Strombur iyo waxa ku qoran ku jiraan Troyer waxa ku jira fanaanado iyo mataqaana Sigisaamo Isra ayaana ku qoran marka anu kasta magaciisa ugu qoray waxaan ugu qoray wax meesha ku jiro soo marka macalimiintan u fududaanay kan waa Intisaar waxaan ku qoran Bixur iyo Troyer marka sidaas oo kaleeto adinkana iskaga soo fududeeyay insha Allah aniga waa ii fududaatay wax badan iga caawisaa mataqaana adinkana inay wax badan iga caawisaa idin rajeynaya duu Ilaahay idmo intii videoyaal badan oo qurux badan aan gadaal idin kala soo wadaagayo waxaad ilaahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdan kala ahad meeshii dhigooyo yariiseeda ayadana iska leh waxaan ugu ridayaa dhar extra kuwaas ay geynooyaa laakiin extra kuwaas ka sii ayaan ayadan ugu ridaa maadaama aad ay u yartahay oo qoyaankeeda iyo wax isku daadiskeed u badan yahay waana ilmaha said u xiiseenayaan inay kaligood wax cunaan marka fanaanada 3 xabo ma ku filno xariifadaas 3 xabo wiiga xataa ma ku filno marka that's why dhar badan intaas ka sii badan ugu geenayaa marka walaalahay intii video dambe aan isku arkayno waxa idin leeyahay khayr badan caafimaad tan ko wada caafimaad qabno wada khayr qabno ilaahay isku keen soo celiyo insha Allah